إنا لله وإنا إليه راجعون. ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa soo afjaray dagaal 12 saacadood ka socday hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Xayaad, halkaas oo ay weerar rasaas iyo qaraxyo ku qaadeen xoogga Al-Shabaab xalay fiidnimadii hore. waxayna weerarka ay ku bilaabeen qaraxyo kadib dableedii Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa gudaha u galay hotelka ayagoona ku dhawaad 12 saacadood ka dhex dagaalamayay. waxaan halkaas tagay ama gaaray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u badbaadiyaan shacabka inuu soo afjaraan weerarka dableeda ee ka tirsan xoogga Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. ilo wareedda ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dhammaan balalayay Al-Shabaabkii hotelka ka dhex dagaalamaysay isla markaana la soo badbaadiyay dad aad u badan oo iskugu jira shacab iyo mas'uuliyiin sida saraakiisha ay xaqiijiyeen. dhaawacyo iyo dhimasho ayaana ka dhashay weerarka dableeda Al-Shabaab ka tirsan ee hotelka weeraray, waxaana dadka dhintay ka mid ah sida ay wararku ay tilmaamayaan baraha bulshadan la soo dhigay mas'uulka ugu sareeyay ee hotelka la weeraray ee Xayaad iyo sidoo kaleente dad kale oo markaas ay ka yihiin dad shacab ah oo aad u badan, mas'uuliyiin dowladeed iyo sidoo kaleente saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa ka mid ah shakhsiyaadka la soo badbaadiyay hooyo iyo carruurteeda oo ku go'doonsanaa weerarkaas ama hotelka ay dagaalku ka socday. magaalada Muqdisho waxaa gelgelay xalay ilaa iyo waa berigii hore ee saaki weerarada ku bilowday qaraxyada oo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen hotelka Xayaad ee Muqdisho. halkaas waxay sheegeen in ay ku laayeen saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo mas'uuliyiin dowladeed sida ay hadal ku dhigeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. barowda internetka ay ku baahiyaan wararka ay ku xaqiijiyeen midaas, inkastoo laamaha ammaanka Soomaaliya ku dhowdo aysan wax faahfaahin rasmi ah oo arrintaas ku saabsan aysan la wadaagin warbaahinta qaybaheeda kala duwan. 12 qof ayaa la soo sheegayaa inay dhaawac yihiin halka 20 kalena ay ku dhinteen weerarka. ilaa caafimaadka ka tirsan ayaa xaqiijinaya in dhaawacyadu ay 20 kor u dhaafayaan halka dhimashaduna ay gaarayso ilaa 15 ruux, inkastoo wararkaas yihiin kuwa aan weli sax ahayn maadaama booliiska Soomaaliya aysan weli warbaahinta la wadaagin macluumaadka iyo khasaaraha xooggan ee ka dhashay weerarka Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen hotelka Xayaad ee Muqdisho. hotelka ayaana la arkaya burbur aad u xooggan oo soo gaaray. sawirada iyo muuqaalada laga soo qabanayana ayaa ah mid dadku ay si weyn ay ula yaabeen. waana weerarkii ugu horreeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka fudeen gudaha Muqdisho tani markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 15 bishii May 2022. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ay ku sheegteen inay ku dileen saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. baraha bulshada ayaa la soo dhigay sawirada dad ku geeriyooday weerarka, balse ilaa hadda ma xaqiijin karno dhimashada rasmiga ah ee weerarkaas ka dhashay dhaawacyada soo gaaray dadka shacabka ahaa. balse wixii ka soo kordha shirarka jaraa'id iyo laamaha ammaanka ay qaban doonaan ay ugu warbixi doonaan xaaladda hotelkii la weeraray khasaaraha ka dhashay burburkii soo gaaray. waxaad kala socon doontaan page-kayga Facebook iyo sidoo kalente barta YouTube-ka aan ku leedahay.